Kani waa Faysal Cali Waraabe. Waa siyaasi aanan la gamban oraayadiisa iyo hadaladiisa. Waxaa wareysanaya wariye ka tirsan goobjoog. Waxauna ka hadlayaa isaga iyo farmaajo wixii dhex maray. Waa siyaasiga keliya ee galaangalka siyaasadeed ee ugu badan ka leh dhulka Soomaaliya, inta badanna ka hadla dowladda iyo tillaabooyinka ay qaadayso. Waa Cabdiraxmaan Cabdishakuurka Somaliland, waana siyaasi inta badan u dhunduleela arrimaha Soomaaliya, laakiin aan taageero sidaas u weyn ku lahayn gudaha Somaliland. In badan uu soo sharaxayna wuxuu noqday mid guuldareysta. Hadalkiisa iyo waxqabadkiisana wuxuu ku soo koomay dhaliilo u jeedinayo dowladdiisa amase dowladaha kale ee deriska. Faysal Cali Waraabe iyo waxa uu yiri aan kala dhexbaxo daawasho wacan. Ka hor inta aadan dhageysan wareysiga walaashayda qaaliga ahay, walaalkayga qaaliga ahow, fadlan like iyo subscribe si aad noola socoto. dalkii oo dhan waxa ka socota war farmaajo geey wax la yiraahdo waxa soo dhacay ii kaada haddi waxa soo dhacay ii kaada haddi Faysal geey ma maqan shacabka Soomaaliyeed waxa wariyal ugu shacabka Soomaaliyeed war waxa soo dhalinyaradii social media horta ma kan ka sheegay baxkaasi dibaddu ka yimi goofkiisii maaha umada yalba meesha goofkiisii ma maxad ka wadaa Faysal magaalada muqdisho xukuumad muqsameysa wareeg magadiin mas'uulka mas'uulka waa gar wareeg Soomaaliyeed waa gar maanta waa muqdisho Soomaali madaxweyne ma ahay muqdisho wada lagu ilaaliyaa way haye de muqdishona kuma haysa garaas support ma haysto waa gar challenge badan oo horyaala idama shisheeya dhaxyaala dhalinyarta deegaanada hortaada qabaalkii waaweynaa horyaala ee meesha madaxweynimada doonayay u qaatay define right inay kaliya madaxweyne noqonayaan maga ninkan oo kale waa jug soo dhacday